dhacay faarax barnaamijkii noo wad markan وهاجاك عبد الفتاح هذا يا أمهات سنتهاي هل كان أن جوجنا إمنك ومال كم ده مالها ضدك يعدكوا ذا كل يبان وهي قد شقالها الدولة مجالها هرجيسة ساكي ضدكوا حيقصوا بحين لما قبل الصومالي لان إن أي دورشة كقيب قاتان إلى يكون يلح بقولي اللي بي أفرتن جوابات أي كذا عيسى تضرب بقولوا كون ضد لجو قياسي أي الديوان قليي إن عدكوا ذا أي ديبتان صفافك الجار هري أي الجلي meelo kala duwan oo magaalada Hargeysa saakay waxaanu ku soo aragnay safaf dhaadheer dadku inay galeen Axmed Saciid Ciga ayaa waxa uu nooga warramaya oo iminka ila jooga ayaan ku hormaraya marka hore waxa warbixin guud bal naga siinaya magaalada Hargeysa iyo qaabkii saakay ay dadku ugu soo baxeen iyo jawiga guud Axmed farxow saaka subaxnimadii afartii iyo barkii subaxnimo markay ahayd salaada subax ka hor ayaan gaariga qaatay oo ku soo wareegay magaalada oo dhan waad yaabasa ilaa 5 doorasho hore ayaan ka fargareynayay sida dadkan ugu soo baxeen wali tan oo kale ma arag oo aad iyo aad dumarku ugu bateen waqtigaas la lugeynayay because baabuuri ma jirto baabuurta wadarkaysa baabuurkeena xataa de number gaar oo gudiga doorashadu ay bixisay baa jira kuwaas baa soconayay aad baa loo soo baxay meel waliba way buuxday xataa markaynu soo soconay wadiga arkayay halkan hay'adda shaqaalaha magaalada bartikeeda ku soo soconay aad iyo aad wadiga arko safafku siday u dheer yihiin wadiga arka hadda imaka ayuunba daqiiqada ka hor 7 baa la bilaabay qofkii ugu horeeyay uu ku riday labada goobood ee u kala qaybsantay halkan xarunta gudiga shaqaalaha oo labada goobood mid waxa ka codeynaya 412 qof midna waxa ka codeynaya 413 qof waa xarunta shaqaalaha in Aasiya Xasan Cabdi oo goob ka ah gudoomiye oo commissionka u shaqeysa ayaa waxay ii sheegtay in marka hore ay hormarinayaan dadka jilicsan dumarka uurka leh dadka naafada ah dadka kale iyaguna xanuunsanaya marka meel baa la geeyo la fadhiisiyay meel falora imaka ayay marka qofkii ugu horeeyay waa kuwa hadda bilaabmay xarunta shaqaalaha marka aad iyo aad magaaladuna way degan tahay dadku aad iyo aad markaasi wadarkasaayo qaar baa soo qaatay xataa cuntadoodii qaar baa adarkasaayo sitabiyo xataa idaacadii bay ku dhageysanayaan halkaas markaan dhex galay imaka marka Hargeysa waa taa inuu soo noqon doona wixii kalena laakiin Axmed intaadan iga tagin aan ku weydiiyay saakay dhaqdhaqaaqii badnaa Hargeysa lagu yaqaanay dadkii iyo gaadiidkii si fiican uma muuqan maxaa ku dhacay wadarkaysa faarax markaynu soo soconay Hargeysana waa taqaanay cidla yahayd markaynu dhulka soo soconay ilaa iyo wadiga arkayo baabuur soconayna ma jirin dadkii waxay qabteen goboladoodii xataa waxa laga yaabaa in dadku miyigi meel miyi ah oo qof walba deegaankiisii ah uu tagay oo ka codeynayo marka Hargeysa dadku aad bay ugu yar yihiin laakiin meelaha xeebaha oo kale waa laga yaabaa inay ku badan yihiin oo dadku marka hore ay ku yaraayeen ayaa dabada laga yaabaa inay dadkii deegaankaasi u dhashay ama dadka ka tirsanaa ay tagaan marka Hargeysa wadarkaas dadkii waxa u baxeen miyigi baa loo baxay koonfur baa looga baxay oo xagan salaxle iyo faraweyne iyo baligubadle iyo xagan kala looga baxay la xeebta waqooyiga ee ay tahay mesela geed deeble baad garanaysaa xagan bariga ilaa iyo ceergaaba loo baxay ilaa iyo caasimada cidul way degantay xagan galbeedka ilaa iyo saylac ilaa iyo awdal meel walba loo kala qof walba deegaankiisa uu ka soo codeynaya وهاجاك أحمد وما تنتهي وكوسون قندونا دقيقتين بركن وحائل الجوجا قار كمد دتكي ساكي أصوك الله عدكو إني بيبتان سمركا محنكو هذا الدورشدن أو قيب قاتان أو هران يسدي وانجليي ولا مركو رمق عايشك مقعي هو عبد الرحمن عبد الله قرب رواقو عبد الرحمن إمي صديات من ساكي صفقة ساكي وحن ماليني إنان شنتي بركي هلكي تشوبي شنتي بركي waayahay waxa ay sheegtaa hore horta codkaaga muu dhiibatay waa markii iigu horeysay ay Soomaaliland sidii ay gobonnimadeeda ula soo noqotay aan codeeyo sababta markaad iminka u codeynaysaa waa maxay markii hore waxaan ahaa ka mid ahaa dadkii qurba joog ahaa hasaasha iminka 4 sanadood u dambeeyay dalkan deganaa markaas si gaar ah aniga tan iigu soo tantahay waxaan rabaa laakiin inaan ogaado maxay muhiimadu adiga ku leedahay waxay muhiimad ii leedahay waxa weeye maadaama la dooranayo 3 musharax la kala dooranayo dee waxay tahay in codkayga aan ku cadeeyay kaan doonaya inaan u arkayo in mustaqbalka dalkan horumar iyo sidii aan islaayahay uu horumarinaya oo gaarsiinay aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiraxmaan walaal adigana magacaaga sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim waa ayaan Muuse Jaamac waa bahdi caafimaadka ee Hargeysa Group Hospital ayaan Muuse Jaamac baa la yiraahdaa walaalo aad baad u mahadsantahay wariyay ayaanay muddo intee lag ayaa safka ku jirtay saaka waxaan ka soo baxay gurigeygii 4 barkii subaxnimo halkana waxaan soo gaaray 6 oo rubuc la ayaa saaka soo gaaray halkana anoo ka imid xaafadda 150ka kana codeynaya maanta guriga shaqaalaha waana soo lugaysay gaadiid ma jirin aad iyo aad baan u soo lugayay maadaama aan xoog hay waayahay marka sababta codkaagu dhiibanaysaa waa maxay
sababtan codkaygu u dhiibanaya waxa weeye inaannu dooranno madaxweyne mustaqballe oo na hogaamiya oo nabadgelyo nagu hogaamiya oo cadaalad nagu hogaamiya oo diinta islaamka nagu hogaamiya oo ictiraafka noo raadiya in aanu helno annagoo aad iyo aad halkan uga mahadnaqayno mahad ilaahay baa leh madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamuud siiraanyo oo na soo gaarsiiyey maanta nabadgelyada aanu hadhsanayno eena maanta haysanno 7 sane ugu dambaysay madaxweynayaashii horena aad baan u hambalyaynay qaar dhintay iyo qaar noolba waa mahadsantahay ayaan walaal magacaaga ii sheegad sheekh cabdilaahi xadi munista sheekh cabdilaahi xadi ها walaal imisadiya soo gashay safka shanti ma lug baa ku timid meesha lug baan ku imid waxay gaadiida shaqaynaya ma jirto waa gartay markii kugu horeysay ba ma dhowrkii jeer hore waan soo codayay haye sababta u codaynaysid maanta maxay madaxweynaha mustaqbalka inaad doorato biidmillah maxaa jeceshahay marka in mustaqbalka madaxweynahaas uu sameeyo wax khayr qaba insha Allah biidmillah kariim wadanka horumarkiisa qaranka horumarkiisa ayaan jecelahay iyo nabadgelyada وهاجاج آدي يضم هتصنتاي وهاجاج دقيستيل وليه الكاد دقلا سعطان ولا أنت في سومالي BBC إمين كوحة إلى جوجا أفيان كجود دورشوين كسومالي لان سعيد علي موسى أو ساك ملك الدوان عن سلاها أو صامر مجال هرجيسة إنك استعد رجع سجل لشقين نجي كوميشن كإسكول جرين مالها قبل الله أي قبتين سعيد صباح ونكسن محل نوجا شيء كرتساك مجال هرجيسة يصير عد بحين طيب باللاوت بسم الله الرحمن الرحيم فرح waxaan ku sheegayaa intii aan soo maray magaalada Hargeysa waa ilaa 200 bay ku dhowdahay oo goobood laakiin intii aan soo maray ilaa saaka 6dii oo imika badda furantay oo ay 7dii markay ahayd saacadu ayay goobuhu wada furmeen laakiin intii aan soo maray aad bay u fiicnaayeen safafkuna dadku waxaad moodaa inay goor hore ba yimaadeen marka si fiican bay uga socotay goobahaasi ay bilaabatay dadkuna kuyuga sugayeen goobtan aynu joogno oo guriga shaqaalaha waa taa imika ka bilaabatay oo 7dii halkan aniga igu dhacday intii hore kormeer baan ahaa 6dii ilaa 7dii marka si fiican bay magaalada Hargeysa ilaa imika wararka aanu helayno wax isbedela oo ku saabsan ama carqalada ma jiraan alxamdulillah rabbil caalamiin meelaha kale gobolada ah diyaar garowga sidee buu ahaa markii ugu dambeysay markii aan ka imanay imika xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka ayaan soo maray xafiiska isgaarsiinta ama communicationka loo yaqaano oo la xiriiraya dhammaan 1642 goobood ee dalku ka kooban yahay waxay noo sheegeen dhammaantood inay xalito nabadgelyo ay ku gaareen isla markaana saaka ay goobo badni soo hadleen oo sheegeen tilmaameen inay goobtii joogaan diyaarna u yihiin inay furaan saacadu marka ay gaadho 7da marka taasi alxamdulillah rabbil caalamiin maanta wax lagu farxo oo lagu faano weeyaan marka ilaa goormaad filaysaan doorashadu inay soo dhamaato marka la fiiriyo safafka dhirirkooda ma waxaas leediin waqti dheeraada ay meelaha qaarkood qaadan doonaan in lagu daro waqti dheeraada waa lagu darayaa haddii dadku safka ay taagan yihiin oo sharciga tilmaamaya oo ku dhigaya waxa weeye marka ay 6du dhacdo saacadu ay dhacdo مغربنا وهدي الله يري هدي دad kaleeto ay jiraan oo wali safka taagan oo doonaya in codkooda ay dhiibtaan askariga goobta ilaalinaya xagga dambe ayuu safka iska taagaya oo ogolaan maayo cid inay soo gasho wuxuu ogolaanaya oo kaliya in inta taagan safku ay dhameystaan xitaa hadii ay ku qaadanayso faaraxow ilaa 12 habeenimo ee caawa وهاجاج سعيد آدي يضم هتصنتهاي ولي دقيستين هل كان نجلس عطان والله أنت في سومالي BBC جوردو وحان الله اللي دونا وريها BBC ده بشكس جوك صار دعي أو إثناء أنفيليو إن وكسوجين هاي متكملة جوابها عتك اللي يبين يو مجالده هرجيسة أو نجوا الرمي الدونا بالقاب كأي يدنا أسعة دور الشدة هل ككذا عيسى قاب كيدتك عتك هذا ويقول يبين لكن دي بقى نقول عليه مركن عجيرة أو نيروبي جوجا أو قيبها كلا برنامج